السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا له كحرا حسنات جنل دمانتين وحان إذن لنا هاي رمضان ونأكسن إلهي سبحانه وتعالى أنا أقبل أعماشينا رمضان كما رتسونك يا قيامك ليلك دمان الله أنا أقبله إلهي سبحانه وتعالى أنا قدقى كو رمضانك كو هاقاقا naftoodana ku tarbiyayo insha allahu tacaala. maanta waxaan idinla wadaagaynaa hal xadiid ilaahay subxaana wa tacaala hanagu anfaco dhammaanteen. xadiiska waa xadiisul qudsi ama xadiista nabi calayhi salaatu wasalaam oo ka warinayo allah subxaanahu wa tacaala. xadiidka haddii aan insha allah dul marno marka hore عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. حديثك waa xadiis aad iyo aad maaragtay u dhiirigelinayo in wanaag qofka oo sameeyo, sidoo kale na tusaya ilaahay subxaana wa tacaala sida oo nooga abaalmarinayo wanaaggaa samaynayno. ilaahay subxaana wa tacaala xadiiskan wuxuu noogu sheegayaa ina allaha kataba alxasanaati wasayi'aat. ilaahay subxaana wa tacaala xasanaadka iyo sayi'aadka, wanaagga iyo xumaanta dhammaanba ilaahay subxaana wa tacaala wuu qoriyey, kadibna wuu caddeeyey. qofkii wanaag inuu sameeyo hamiyo oo qalbigiis kusoo dhacdo laakiin aan samaynin wanaaggaasi, ilaah subxaana wa tacaala wuxuu u qorayaa xasana kaamila, xasano dhammaystiran, ajir kaamila loo qorayaa. qofkaas hal ajir oo dhammaystiran ayaa loo qoraya. wuxuu hamiyey inuu sadaqo dhiibo, mithaal sadaqadiina muusan dhiibin laakiin wuu hamiyey, maaragtay ilaah subxaana wa tacaala xasano kaamila ayuu u qorayaa. haddii uu hamiyo kadibna oo sameeyo wixii uu hamiyo oo wanaagsanaa, katabaha allaahu lahu cindahu 10 xasanaatin. wixii uu hamiyey hadduu ku dhaqaaqo, ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu u qorayaa 10 xasanaad ilaa 700 dicf, ilaa 700 oo laalaab, ilaa adcaafin kathiira, iyo intaas in kasii badanba, intaasoo jeer ayuu ilaahi subxaana wa tacaala ugu sii dhufanayaa ajirkiisa maarata halkaas xasano uu hamiyey kadibna uu sameeyey darteed. haddii qofka xumaan uu hamiyey, marka inuu wax xun sameeyo dembi ah uu hamiyey laakiin ma uusan samaynin, katabaha allaahu lahu cindahu xasanatan kaamila. qofkii dembiga hamiyey inuu dembi sameeyo go-aansaday haddana aanan samaynin, qofkaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qorayaa xasana kaamila. wuxuu hamiyey waa dembi laakiin ma uusan samaynin, ilaahay subxana wa tacaala marka wuxuu u qorayaa xasana kaamila, ajira loo qorayaa. fa in huwa hama bihaa fa camilahaa, haddii uu hamiyo inuu dembi sameeyo, muxumaan sameeyo, oo haddana sameeyo, wuu hamiyey kadibna wuu sameeyeybu, qofkaas waxaa loo qorayaa sayi'atan waaxida, hal dembi ayaa loo qorayaa keliya, hal dembi. marka dadka ilaahay subxana wa tacala ugu naxariista waa dareemi kartaa, adoo xumaan hamisay oo aadan samaynina ajir lagu qorayaa. haddaa xumaantii samaysidna ilahi subxana wa tacala 10 mar makugu dhufanaya iyo intaasoo mare, halkii mar oo samaysay keliya ayaa lagu qorayaa oo halkaas mar ayaa meel kugu taalo. maxaa sababa marka dadka inay dembiga badsadaan ama dembiga u bato? waxaa sababaya qofka in uu yaso dembiga, macnaha inuu yaraysto dembiga, uu yiraahdo wax yaraan sameeyey, wax weyn ma ahan, dembi yaraan sameeyey, inuu qofka siyaas yiraahdo oo uusan ka toobad keenin, uusan ka soo laabanin, taasna ay sababto in dembiga uu ku bato qofkaas. ilaahay subxaana wa tacaala hanu aqbala acmaasha wanaagsan ee bishan ramadaan
ilaahay subxaana watacaala hanoo aqbalo, ilaahay subxana watacaala hanaga dhigo kuwa naftooda tarbiyeeya kuna tarbiyeeya jidka toosan, quraan akhriska, adkaarta iyo ducada qiyaamka leylka ah iyo maalinta soonka. insha allahu tacaala xadiiskan sii gaarsiiyey dhammaan walaalahaaga iyo asxaabtaada janaalkan kusoo bir. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.